laaran uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland mudane Saciid Mire Faarax Giire iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Garadiga galbeedka gobolka Sanaag waxaana wafdida soo dhaweeyay maamulka degmada Garadiga maareeya ku-xigeenka wakaalada horumarinta wadooyinka ahna madaxa mashruuca wakaalada horumarinta wadooyinka laamaha dawladda cuqaal waxgarad iyo haweenweynaha degmada sadcaalka wafdida oo daarana hibafurka jaamacadda Ibrahim Barre University Garadiga oo la furi doono 10 bisha 8aad ee fooda inagu soo haysa hadii Allah awoodo la ogolaado waxaana uga mahad celiyay ka soo qaybgalka furitaanka jaamacadda Ibrahim Barre University maayirka degmada Garadiga Cabdilaahi Salebaan Boobe maayir ku-xigeenka degmada Sahal Maxamed Ismaaciil maareeya ku-xigeenka wakaalada horumarinta wadooyinka ahna madaxa mashruuca wakaalada Khadar Cali Carshe caaqil xirsi diiriye dhankoodana waxa uga mahad celiyay sida milkaha iyo sharafta leh ay soo dhaweeyeen maamulka degmada Garadiga iyo bulshada reer Garadiga xildhibaan Cumar Jaamac Faarax ugu dambeyntii waxa madasha soo afmeer gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland Saciid Mire Faarax Giire oo mahad celiyay isna sida miiqaanka iyo sharafta leh ay soo dhaweysay bulshada reer Garadiga hadallo dardaaran iyo waanaahna ka jeediyay ugu dambeyntii wafdidan oo soo indhaysay jaamacadda Ibrahim Barre University oo uga soo kicitimay madaxda Hargeysa ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo indheeyay waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa bulshooyinka reer Garadiga ee soo dhaweeyay gudoomiyahoodii iyo xildhibaankoodii oo halkan maanta inaga sugan una socda furitaankii ibafurka jaamacadda Ibrahim Barre University runtii waa wafdidii ugu horeysay ee soo gaadha ee ku socota inay nagala qayb gasho furitaanka jaamacadda iyo xoggaal noqoshada arrimaha degmada waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa soona dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka shacabka degmada Garadiga afka golaha deegaanka ee degmada Garadiga afka dadweynaha ee degmada Garadiga afka waayeelka ee degmada Garadiga waxaan si mugle iyo miisaan leh u soo dhaweynaynaa oo kal iyo laaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Saciid Mire Faarax iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax bismillaahir rahmaanir rahiim waa kulay waa de muuqataa waa galab waxaynu halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland Saciid Mire Faarax iyo wafdiga ballaadheyn uu hogaaminayo xildhibaanada qaranka kale dawladda leh Cumar Jaamac Faarax yiraahdo maareeyaha ku-xigeenka wadooyinka jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdiga kale dhammaantiin waxaan ku leenahay degmada Garadiga ku soo dhawaada dadweynaha reer Garadiga Cumar Jaamac Faarax iyo maareeya Khadar Cali oo isaan leeyahay gudoomiye ku-xigeen ku soo dhawow gobkii iyo Garadiga iyo gurigaagii hooyo ku soo dhawow ku soo dhawow ku soo dhawow ku soo dhawow adiga iyo waftigaaguba ku soo dhawaada Garadiga intaas kaga baxaya salaamtay tahay aniga iyo shacabka reer Garadiga inaanu soo dhaweyno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax waxaanu leenahay mudanayaal soo dhawaada runtii annagu haddaanu nahay hay'adda horumarinta wadooyinka waxaanu nahay Garadiga baanu ka soo jeednaa oo kararkii ugu weynaana noo yaalo inta badan mas'uuliyiintu markay u soo kacdaan Sanaag anigu waxaan ku matalaa inaan ahay kuwa soo dhaweynaya ee halkan jooga ee ka mid ah reer Garadiga baan anigu ku matalaa qalbi iyo niyad same baan idin salaamayaa dadkayagii baa tihiin waad garan karaysaan iskuul jaamacadda waxaa la furayaa 10 bisha aniyo gudoomiyuhuba hordhac baanu ahayn magaalada waxa ku soo wajahan wufuud fara badan dawladii oo dhan baa imanaysa jaamacadii kala imanaya gobolada laga imanaya marka hordhac waxaanu u nahay inaanu idinla sii ogaano
وبالقابكaynu dadka u soo dhaweynayno sidaynu martigelinayno sidaynu u dajinayno sidaynu u soorayno ayaanu isnidhi bal sii hormara aniga iyo gudoomiyihii oo deegaanka ka soo jeedan kadib sharaf way tahay inaad si wanaagsan oo qiimo badan ugu soo dhaweyseen gurigaygii iyo magaaladaydii aan ku dhashay degmada Garadag aad iyo aad baan runtii sharaf iyo karaamo noogu tahay ugu horreyn waa idin mahadnaqaynaa sida kalgacalka leh ehelnimada leh muwaadinimada leh rabitaanka leh noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa annagu wafdi ahaan waxaan u soconay inaanu ibafur ama hordhac u nahay sida la socotaan furitaanka jaamacadda Ibrahim Barre University oo 10 bisha laga furayo degmada Garadag qabanqaabo badan baan ka soo galay hawl badan ilaahay u raxmado Ibrahim Xaaji Barre Nuur asaasi jaamacadda waynu ducaynaynaa iyo dhammaan cid kastoo qayb ka qaadatay ugu horeeya qoyska reer Barre Nuur waxaan markaa u nimi inaynu maadaama marti badan ay ku soo wajahantahay degmada Garadag waa degmo la jecel yahay degmo taariikh ku leh qarankan halgankii nabadii siyaasadda horumarka mid walba taariikh tugan ku leh ummad badan baa imanaysa haday tahay xukuumaddii haday tahay baarlamaankii haday tahay salaadiintii haday tahay madaxdii jaamacadaha haday tahay baacmushtarkii bulsho tiro badan baa soo socota marka aniga iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo marra chief aqalka deegaanka marra odayada golaha marra nin wax badan deegaankan iyo dalkan ka qabtay waxay noola noqotay inaanu isqaybino xildhibaanadayadii oo qaarna ay hordhac noqdaan oo aan xogaal u noqono sida loo soo dhaweynayo martida sida loo dajinayo sida loo maamuusayo sida loo amnigooda loo ilaalinayo qaarkoodna ay soo kaxayaan martida sidaasaan xildhibaanadii kale soo qaybinay xildhibaanadii kale iyo fiidina bereben u soo bilaabi doonaan hadii lahay ka dhigo waxaan idinka rajaynayaa sidii gobonimada lahayd ee leenagu yaqaanay ee dhaqankeenu ahaa soo dhaweyn martigelin nidaam ayaa leenaga rabaa insha Allah bismillaahi kariim sooriyo wanaag dhaqankeenu insha Allah ayaan idinka rajaynaynaa waa Maxamed Raan telefishinka caalamiga Sahan TV degmada Facaweyn ee Garadag